nabadgelyo xilli waxaynu joognaa zinadu agteena ay ka tahay xalaal xilli waxaynu joognaa gabdhuhu ay wada khaawan yihiin xilli waxaynu joognaa dadka ahlu quraanka agteena ay ka liitaan xilli waxaynu joognaa culimada ay yihiin kuwa agteena aad uga yasan xilli waxaynu joognaa masaajidada la kala leeyahay xilli waxaynu ku joognaa aynu ku quraacano qaraabanimo aynu ku soo kacna qaraabanimo xilli waxaynu joognaa qof walba la iska xigsanayo xilli waxaynu joognaa amaanadii ay luntay xilli waxaynu joognaa qof walba qofka kale in uu reexayo walaalnimana aynu isku ciisaynaynin xilli waxaynu joognaa qof walba waxa uu baranayo waxa lagu sheegay iyo magac yelo uu u baranayo xilli waxaynu joognaa qof walba aad aragto dantiisa oo kaliya uu ordayo ka muslimiintana uu daba jarayo xilli waxaynu joognaa yahuudu ay noo yihiin hoggaan iyo dad aynu ku dayanayno xilli rasuulka uu ka dardaarmay inaan lagu dayan yahuud iyo nasaaro xilli waxaynu joognaa qofkeena qofka kale uusan aaminaynin miyaadan ogeyn in dunidan laga tagayo miyaadan ogeyn in ay tahay maalmo oo kaliya miyaadan ogeyn in lagu galinayo 2 mitir iyo wax ka yar miyaadan ogeyn in aad amar qaadanaysa aadan ismuxji karin markii nafta laga qaado gabariya yeesan naqani markii koobaad ee aad xijaabato markii naxashka lagu saaro iyo dharka karfanta lagu galiyo wiiliyo yuusan naqani markii koobaad ee aad dhacdo qof muslim ah markii lagu gadgadinayo markii lagu dhaqayo wiiliyo isxisaabi inta lagu xisaabin gabariyay isxisaabi intaan lagu xisaabin adduunyadani waa 2 maalmo heesaha iyo lacibka aad ku jirtaa aynu ka wada baxno tani waa adduunyo oo kaliya xaq aakhirana waa in loo degdegaa adduunyadani waa daarul amal daarul jazaana waa aakhiro nolol quruxdeeda waxa ay ku jirtaa diinta nolol kaamil ahna waxa ay ku jirtaa diinta hadaa doonayso nolol qurux badan hadoonanin lacibka iyo dheedheeshe dooro xaq alle diinta iyo cibaadada badso qof walba waxa uu jannada uga hormari karaa qofka kale inta uu ka cibaado badan yahay inta uu ka quraan akhris badan yahay inta uu alle uga dhow yahay adduunyo iyo aakhiro waxa khasaaray qof adduunyo fakhri ku ahaa aakhirana isla fakhrigii ku ahaa waa maxay arintaasi hadaa tahay qof fakhri adduunka hadaad fakhri ku tahay qof guriye samadaas ku leh hadaad sidaas u meelcisato aakhirana sidii aad u meelcisato وأيان دار وحكا أيان دار السنة مجرو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر عدي الدنيا داني أديق مليهد وحالة قالدا وحول بو أي سميان الدنيا دا أيا لغسيا وقال كي صدق الله بحصد صدق دي سنو بربرتئ الدنك لغو زيادية أديق المسلم كان حداد صدق بحصده حق على أي كوجري دونتا يوم الآخرة أيا نهلي دونتا حالك قالك وعذاب ينب خالدين فيها أبدا كو آنايو أديق مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا محاكو جينيا أما محاكو السببي إن قال معي ساعته ميادا أجين رسولك إنه يري صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قف والباخفك وجعلها أي آخر معي سأهانا ويليه يجبريه إسكفير خفكات صاحب كدغنيسو ويليه إسكفير خفكات لصعته اسكو هذا ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه دنيسن اسكو كينين دن واد كيالان كرتا خوف صاحبك بل سواء إناد أجعلتا ألا درتيس qofkaad nacaysana waa inaad u nacda alla dartiis qofkii wanaag iyo wax ku amraya waa inaad jeclaataa alla dartiisna aad ku jeclaataa qofkii xumaan iyo lacib iyo dheedheer iyo waqti lumisna kula yimaada waa inaad ilaahay dartiis u nacbaataa naftayda iyo naftiinaba waxaan ku waaninayaa inaynu cibaadada alle u degdegno hadalkaygeena inuu ilaahay ka dhigay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu